haddaba markaa waxaan u yeeray Naasir Mahdi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka qiyaarta sharafta leh ka soo qayb gashay xafladan cali masaarka Malaaq Shoori Ali Malaaq waa idin wada salaamaya أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانياً روحدي waxaan mar labaad u hambaleynayaa Malaaqa waxaan aqaanaa aniga abiis Malaaq Shoori Ali aad ayaan kugu hambaleynayaa soo dhawaad markii aan ka baxo mahadnaqa Malaaqa horta anigu hadda ma ahi xildhibaan dawladda waan iska casilay marka waxaan rabaa waxyar inaan ka taabto dastuurka lagu murisay waxaan raacayaa ninkii walaalka ah oo ka hadlay dastuurka horta dawlad ku meel gaar ah dastuur ma ansixin karto marka horeba dawladda ku meel gaar waaye taaniin mar haddii dawlad ay dastuur keenayso dawladda inay dalka idil gacanta ku wada hayso waaye من راس كامبوني إلى راس عسير هذا تارك لسيدات بقول ولا صح ولا صومالي من مثالي كرتو سيدات داس بقول ضد كصح ولا إنما وضع ضد صلاة الدين أما واسيو أما ملاقي أو جنوين سيدي ملاق شوري وكلام معها waxaa loo baahan yahay hadii malaaq ama ugaas ama iimaan laga hadlayo wax soo jireyna ama taariikh hore leh ama qofka waalidkiis inuu ka dhaxlo ma aha in qofka yaa taageeray ah ana wax qoray in la yiraahdo ma marka dastuur mar hadii la sameeynayo waxaa loo baahan in ummadoo dhan loo qaybiyo aqrisato ay fiiriso nuxurka iyo waxa ku jiro ma aha dadka in loogu hanjabo heega la geynaa qofkii ka hortimaado marka dastuurka Soomaaliya iskale annaga ma heegan wax ma noo meerin karo United Nations waxma noo meeri karto wadan xuraan hay waxaan doonaa waa diidi karnaa marka kalmadooyinka ay adeegsanayaan dadka siyaasiyiinta madaxda isku sheegay dawladda ma raba inaan hoos aan u sii taabto ee dadku ku hanjabayaan ma aha mid wanaagsan dastuurka Soomaaliya iskale haday qaadanaysan ayagay u taal referendum xuray u yihiin marka laguma jiro xilli dadka la cabiidiyo loogu hanjabo in la geenayo heeg iyo waxyaabo saas oo kale mamnuuc weey dastuurka Soomaaliya iskala haday aan saxsanaysa iigay u taal in si xura dadka loogu soo bandhigo ee aqristaan waqti la siiyo u baahan tahay dastuurna waa leenahay dastuur rixdinka la qoray jira in kaas aan raacno hadii la bedelayna baarlamaanka jiro wadanka in baarlamaanka la horgeeyo ma ay dad suuq laga soo qabto la yiraahdo kala adiga qabiil heel matal kala adiga inta imaa noo ansixi ما الله بهنا تاسن شرعي دولة شرعي هذا ما رنت مركان كذا رنا أنت أنا مدي دني شرعي أما الدستور النظام وطن لو دقائق لكن واحد عن شرعي وافق سنين قفل بوا أركي كلام لح قفل ديني يراهن أنا صحيح أنا هاي تذكر أنا صح ولا إنه حق وملحة إنه يراهن معناه قفان قف باسبور أجنبي وتوضك إسكما صار شرعي كلا إنه يراهن دستور كحياة بدن وقلدنا كوجرا qofka jinsiyada macnaha hadda markii laga soo qaado tusaale ahaan qofka markuu 5 sano degnaado wadanka Soomaaliya uu naqanaya haliin ma diidan laakiin in xogaa la sii qodobay ku wanaagsan anaga hadda halkaan deganahay qofka ma la siin karo 5 sano degnaado haduu dambi galo waxyaabaha qoran qofkii ka mamnuucay marka wax hoos loo sii baaraan degay la fiiriye ma aha marka waxa wanaagsan in dastuurka si fiican loo baaro laga baaraan dego qodobada qaar kood laga saaro دولة هدي دستور الأنسحنا إن دولة جنوين أنسحك كرت أو أنا هين دولة كم يرجع تمبرري دولة ده تمبرري وقت يد وارد ما هذا إسقاطه وحي أنسحك كرت مجرد دستور هدي الأنسحنا دستور هدي اللي سمعنا الصومالي ودنوريا دولة دينا كعنتكم هو هاي وطن كويس طيب كونه حمر الجوكتا أيده حرمة أم صوما إلى لسه وطن كيف حرمة دستور حل اللي أنسحنا اللي هم بتجربه وطن حرة لو بهاي marka xaqiiqda inaan ka hadalno way hadii dadka gudaha ku jira la yiri ma shiri kartiin waxa ma qaban kartaan dhibaato way bini'aadamka xor waaye hadii gudaha joogaan iyo hadii dibadda joogaan dimuqraadiyada jirto in dadka xoriyadooda loo daayo codkeeda loo fasaxay ku wanaagsan tahay laakiin hadii la yiraahdo dadka gudaha ku jira la cabriyo ninka waxaan maqlay wasiirka arrimaha gudaha lagu sheegay inuu yiri ummadda lama shiri karo hadii aan fasax laga qaadan waqtigaas lama joogo 2012 aan ku jirnaa dadka 1980 ma joogno 1960 ma joogno
dadku waa xor dadku waa dimuqraadiyad waxay rabaan ay qaadan karaan marka teeda kale waxaan u sheegayaa dadka madaxda dawladda dadyoga ay soo aruursadeen aan qaarkood ahayn macnaha dad dhaqan aan genuine ahayn taasina waa dambi kale waa khiyaano qaran ay galeen wadanka sidiisa dadka madaxda ka waxay ku yimideen diin qaasatan markaan ka hadlo madaxweynaha wadanka markuu siyaasadda soo galay wuxuu sheegtay inuu yahay nin diinta wadanka ku dhaqaayo maanta wuxuu taagan yahay dastuuraan wataa oo dastuurka qaarkiis ay ku qoran tahay qofka diinta inuu qaadan karo qofka Soomaaliga waa dhibaato marka diin ay Ugandese iyo Burundi ilaalinayaan inaysan jirin qof walba oo Soomaali waa dareemi karaa dastuurna dastuur dad muslimiin ah marka awalan horta dastuurku waa kii Ilaahay noo qoray in al-hukmu illa lillah haddii dastuur kale aan qoranayn mina raali isaga wadanahay oo aan ku wada heshiinaan qoran karnaa laakiin dastuur 6 qofood iyo dad gaar ay soo qorteen ee Soomaali u soo qoraan Soomaali uma cuntami karo marka mana qaadan karno warkan waa idinku badiyay salaamu alaykum وعليكم السلام وهذا نكون سلام قولتكم أفرت فلانك على ديس آدي أنا محسنتين سودوين تانا سودويسين هربستر داتهين وحق آدي وحق رنتو آد ومهدين عيا لها مهد لها دتكي بكيمة بنانها ومعرفت شرفت الهاي ومعرفت نورس وقيب قلي حفلة دان أنكو سودوين كنت أجيرينو ملاك علي ملاك شور ملاك علو wixii la dhihi lahaa horaa loo yiri wax kale oo dhahayo askar waxa ku soo dhameynaa kaliya waxaan taageersanahay waa malaaq qeyna malaaq cali malaaq shor malaaq colow oo ah malaaqi Soomaaliyeed ma ahan kaliya xamar waa malaaqi Soomaaliyeed say horteen u yireen walaalaheena waxaan rajaynayaa إلهي الله إنه لقرب قالوا هو شيء سبلارن أو معناته جوجشي هراء وهاجرت سومالي جوجل سومالي وهاجرت إنه شيء بلاريو شيء نبض شيء شرف له إنه مدة سوماليات حل كذا معناته اللواي إنه غيب قالوا إنه حل له حل مدة سوماليات أو سو صار نقنو ذلك إنه هو أنا كولا لا كل قاعد بدن حنبارسن نبض نورته ودك إنه وصل نقنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد بما سنتهاي حاجية مركان واحد وباقي أبلينو إنه جوجيو متكمل هذا اللي يرد على بريستول هذا محمد علي مهم. السلام عليكم. كل واحد بدن مارتي هذا اللذة ولا سلام مارتي دول مري وحيل الشيء كرنا ولا شيء عاو مشان كل شرفته وحمدن إلهي مدن مركل الله بعدنا وحمدن دتك قبل قابي وحنا ما هاد قارو علنا دتك كسوق يبقى رجل دمر انتبه مد اللبات طبعا حفلة مارتا وحيكو صابسنة ملاق علي ملاق علو ملاق شوري أنا وحوي والبو ومارتي وناقة مشان كل ماضي وحام هذا سلا إله سبحانه وتعالى مد لبادنا وحا شرفت مدن دتكي مارتي قيب وين كقاتي دتكي كسوا قيب قال أنت وهم هذا علينا أنت أسكدب كلي dhaqanka waa laga hadlay siyaasadii waa laga hadlay road mapka waa laga hadlay dastuurka waa laga hadlay laakiin waxa haboon maaragtay mar walba Soomaali waxay wax ku qaybsataa ay maaragtay ay dhaqan soo jireen ay ku leedahay waxa way waa dhaqankaas ama maaragtay duub ha ahaado ama maaragtay oday dhaqameed ha ahaado waa dhaqankaas mar walba Soomaali maaragtay weligood wax ku qaybsan jireen marka haddana dhaqankaas un baa maaragtay meeshaan ku haynaa oo maanta maaragtay aan sharafteedii aan maaragtay meeshaan ka muuqata marka oo malaaqo maaragtay dabcan ay oo ka yahay laf dhabar asigaana maaragtay intaan qalqiga isugu timid caawa madaxiisa
marka ilaahay dartiis waxaan maaragtay wixii meeshaan ka soo baxo oo wanaag ku dhamaadana kolley waxaa mudan maaragtay dadkii soo qaban qaabshay iyo dadkii kasoo qayb galay iyo dadkii heerkan soo gaarsiiyey marka waa aad baa idinkaga mahad celinayaa waxaan idin leeyahay maaragtay insha allahu khayr maaragtay aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi